dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xaqiiqda ciidamada Itoobiyan hor leh oo la sheegay inay gudaha dalka soo galeen xilli saacadii la soo dhaafay warbaahinta gudaha iyo qaar ka mid ah dadka baraha bulshada wax ku daabacay ay timinayeen in ciidamada Itoobiyan hor leh soo galeen gudaha Soomaaliya ayaa arrintaas waxa ka hadlay saraakiisha dhanka ammaanka ee Soomaaliya warbaahinta Soomaalida qaar ayaa baahiyay in ciidamada Itoobiya ay gudaha dalka soo galayaan fulinta heshiiskiisa afgaradka ee Somaliland iyo Itoobiya ay gaareen inkastoo ciidamada Itoobiya hore u joogeen gudaha Soomaaliya haddana warka laga soo xigtay saraakiisha ammaanka ee dowladda federaalka ayaa xaqiijiyay inaysan jirin ciidamo cusub oo soo galay gudaha Soomaaliya isla markaana ka yimid dhanka Itoobiya marka laga soo tago warbaahinta gudaha ee wararkaasi weyn ilaa shalay u baahinayay waxaa ka mid ah dadka baraha bulshada wax ku qora oo arrintan isna soo bandhigay gudoomiye ku-xigeenkii hore dhanka amniga gobolka Banaadir ninka lagu magacaabo Cali Yare Cali dhawaanayeed markii hogaamiyaha maamulka Qaatumo uu sheegay Itoobiya inay damacsan tahay gudaha Soomaaliya ciidamo inay soo geliso ayeeshee wararka soo baxay ayaa tilmaamaya in Abiy uu ka fikirayo kalaabashada heshiiska uu la gaaray Somaliland suurtagalna maahan xilligan ciidamo inuu soo geliyo gudaha Soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya wargalo qorshaysan oo saaka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Bay kuwaas oo lagu beegsaday goob ay isku urursanayeen kooxda maleeshiyaadka shabaab howlgalka ayaa la sheegay in kooxdan tiro dagaalamayaal looga dilay sidoo kale lagu burburiyay fariisin ay lahaayeen iyo goob dadka shacabka ay baad uga qaadaan guutada 16aad ee kumaadooska darab ayaa fuliyay howlgalka iyagoo beegsaday xarumo ay maleeshiyaadka shabaab halkaasi ku lahaayeen war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalka ku burburiyeen fariisimo weyn oo kooxdu ay lahaayeen isla markaana dadka ay ku baadaan sidoo kale ay isku urursadaan markay doonayaan weerarada bulshada inay fuliyaan maleeshiya tiradooda aysan sheegin dowladda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeedka lagu xaqiijiyay in howlgalka lagu dilay sidoo kalena kuwa nolosha lagu qabtay war-saxaafadeedka ayaa la raaciyay ciidamada xoogga dalka ee kumaadooska darab ayaa ah awoodda sida tooska uga hortagta baacsiga firxadka maleeshiyaadka khawaarijta shabaab xaaladda ayaa la soo warinaya inay haatan tahay mid kacsan weli ay socdaan howlgalla ciidamadu ay wadaan inkastoo shabaabku arrintan aysan war ka soo saarin maalmihii dambe waxaa gobollada Bay iyo Bakool ka socday guluf cusub oo lagu beegsanayo fariisimaha kooxda shabaab ay halkaas ku leeyihiin horay qaar ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan Hiiraan Shabeellaha Dhexe Mudug iyo Galgaduud waxa uga dhacay howlgal safa oo deegaano badan kooxdan looga faramaroojiyay